الله الرحمن الرحيم وسلام يا شروينها دمان مرتشرفت dadka meesha isugu yimi qof walba maqaamkiisa ku salaamaya bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ugu inoo akhrinayaa war-murtiyeedkii ka soo baxay saddexdii beri ee halkan dood ay ka socotay shirweynaha wadatashiga Puntland 15 iyo 17 bisha ka socday magaalada Garowe war-murtiyeedkii oo koon ayaan idin akhrinayaa shirweynaha wadatashiga Puntland war-murtiyeedka shirka 17 bisha Maarso 2020 shirweynaha wadatashiga Puntland ee lagu go'aamiyay shirkii golaha xukuumadda Puntland ee ka dhacay xarunta madaxtooyada Boosaaso 7 bishii Febraayo 2020 ayaa si rasmi ah uga furmay qolka shirarka ee jaamacadda Puntland State University Garowe 15 bishii Maarso 2020 soona xirmay 17 bishii Maarso oo ah maanta shirweynaha waxa isugu yimi ergo iyo goobjoogayaal kor u dhaafay 1800 oo qof oo isugu jira golayaasha dawladda Puntland wakiilada Puntland ku metela dawladda federaalka ah istimada Puntland ra'iisul wasaarayaashii hore ee dawladda federaalka ah madaxweynayaashii hore ee Puntland gudoomiyaashii hore ee golaha wakiilada Puntland siyaasiyiin cuqaal nabadoono wakiilo ka socda ururada bulshada ee haweenka dhalinyarada ganacsatada aqoonleyda culimada iyo qurba joogta reer Puntland ujeedka shirka wuxuu ahaa sidii qaybaha kala duwan ee dawladda iyo shacabba ee bulshadeynta reer Puntland u qiimeyn lahaayeen marxaladihii la soo maray 12 sano iyo dheeraadkii la soo dhaafay iyadoo sidoo kalena jihayn lagu sameyn lahaa mustaqbalka aayaha Puntland guda iyo dibadba iyadoo dib loo milicsanayo himilooyinkii loo asaasay Puntland muddadii uu shirku socday waxa lagu lafaguray mowduucyo kala duwan oo isugu jira guulaha la gaaray iyo caqabadaha ka jira Puntland federaaleynta dalka iyo xiriirka Puntland iyo dawladda federaalka ah khudbado iyo dood kooxeedyo socday muddada 3 beriyaha shirweynuhu wuxuu soo saaray qodobada soo socda go'aamadii shirka qodobka koowaad midnimada siyaasadda iyo maamul wanaagga ayuu quseeyaa shirweynuhu waxa uu ku baaqayaa in la adkeeyo midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyadoo loo marayo nidaamka federaaliga ah ee lagu heshiiyay shirweynuhu wuxuu si gooni ah ugu mahadcelinayaa hoggaanka dhaqanka Puntland doorkii shariifka ahaa ee ay ka qaateen asaaskii dawladnimada Puntland iyo kaalinta ay ku leeyihiin midnimada iyo wadajirka bulshada shirweynuhu wuxuu bogaadinayaa horumarka baaxadda leh ee Puntland ku tallaabsatay muddadii ay dhisnayd horumarkaas oo ay ka mid yihiin dhismaha hay'adaha dawliga ah bixinta adeegyada bulshada dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo kaalintii hormuudnimo ee Puntland ka qaadatay dhismaha iyo taabagelinta dawladda federaalka ah ee Soomaaliyeed shirweynuhu wuxuu hoosta ka xariiqay inay Puntland ku asaasantay 5 gobol ee kala ah bari sanaag nugaal sool iyo waqooyiga mudug iyo degmada buuhoodle midnimadaas iyo wadajirkaasuna yahay dastuuri lama taabtaan ah sida ku cad dastuurka Puntland dawladda Puntland iyo dadkeedaba waxa waajib ku ah xaqiijinta iyo ilaalinta midnimadaas dhuleed iyo dadeed shirweynuhu wuxuu sidoo kale ugu baaqayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay ku wada noolaadaan nabadgelyo isqadarin iskaashi iyo wada noolaansho shirweynuhu wuxuu u soo jeedinayaa dawladda Puntland in la qabto shir looga hadlayo dhulka maqan ee Puntland lana sameeyo guddi gaar ah oo dabagala howlahaas shirweynuhu wuxuu aqoonsaday in laga daahay hirgelinta nidaamka dimuqraadiyeynta Puntland wuxuu garowsaday in nidaamka xisbiyada badan ay qayb muhiim ah ka tahay xal u helidda tabashooyinka ka jira matalaadda siyaasadeed shirweynuhu wuxuu bogaadinayaa dawladda Puntland ee xilligan inay goor hore bilowday geedi socodka nidaamka dimuqraadiyeynta wuxuuna ku boorinayaa dhamaystirka geedi socodkaas muddaxileedka dawladdan shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa xukuumaddu inay abuurto jawi iyo saaxad siyaasadeed oo si siman loogu tartami karo lana siiyo daahfurnaan iyo madax bannaani saxaafadda ahna leh shirweynuhu wuxuu kaloo ku dhiirigelinayaa xoogaga siyaasadeed bulshada rayidka ah culimada haweenka dhalinyarada iyo dadweynaha Puntland inay si aan kala har lahayn uga qayb galaan hirgelinta hanaanka dimuqraadiyeynta dalka
isla markaana shirweynuhu wuxuu beesha caalamka ka codsanayaa inay ku biiriyaan taageero farsamo iyo mid dhaqaale labadaba barnaamijkaas. shirweynuhu wuxuu ku bogaadinayaa xukuumadda Puntland ambaqaadka maamul wanaagga gaar ahaan dhinacyada dib u habaynta hay'adaha amniga, shaqaalaha rayidka ah, nidaamka maaraynta maaliyadda. shirweynuhu wuxuu kaloo dowladda Puntland ku boorinayaa in la dardargeliyo lana xoojiyo tayeynta madax bannaanida iyo dhammaystirka hay'adaha garsoorka si loo helo cadaalad bulsho oo waafi ah. sidoo kale shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa dowladda Puntland inay asaasto maxkamadda dastuuriga ah. qodobka labaad, amniga. shirweynuhu wuxuu aqoonsaday in argagixisadu tahay masiibo qaran iyo mid caalami ah. Puntlandna shacab iyo dowladba ay mar walba dagaal kula jiraan ciribtirka argagixisada. waxaa xusid mudan iyo bogaadinba mudan howlgalladii la dagaalanka argagixisada ee sida wadashirka ah loola galay kooxda al-shabaab ee soo weerartay deegaanada Garaaca, Suuj iyo Garmaal sanadkii 2016 iyo la dagaalankii Daacish ee buraha Qandala. wuxuu shirweynuhu ku boorinayaa inay Soomaalidu iska kaashato beesha caalamkuna ay gacan buuxda ka siiso xukuumadda Puntland sidii cadowgaas al-shabaab iyo Daacish loo ciribtiri lahaa loogana sifayn lahaa silsiladda buuraleyda Goolis iyo guud ahaanba Soomaaliya. shirweynuhu wuxuu u soo jeedinayaa dowladda inay xakamayso hubka sharci darrada ah ee gacanta shacabka ku jira. cidda kaliya ee haysan karta hub waa ciidamada amniga iyo ciddii kale oo sifo sharci ah loogu oggolaado. shirweynuhu wuxuu u soo jeedinayaa dowladda Puntland inay tallaabo degdeg ah ka qaado maandirooriyayaasha iyo daroogooyinka dhibaatada amni iyo dhaqan ku haya iyagana bulshada. qodobka saddexaad, horumarka iyo adeegga bulshada. shirweynuhu wuxuu garowsaday in heerka dhaqaalaha Puntland aanu dabooli karin baahiyaha shaqo, horumarin, dakhli iyo adeegga bulshadeed. sidaa awgeed waxaa dowladda Puntland lagu boorinayaa inay dejiso istiraatiijiyad koboc dhaqaale oo hadafkeedu yahay yaraynta saboolnimada iyo abuurista fursado shaqo. istiraatiijiyadaas waa inay diiradda saartaa ka faa'iidaysiga khayraadka dabiiciga ah gaar ahaanna khayraadka badda, dhiirigelinta maalgashiga iyo ku jahaynta bulshada dhanka wax soo saarka. waxaana lagu baaqayaa in la dardargeliyo dhammaystirka mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha ee muddada dheer soo jiitamayay sida ballaarinta iyo casriyeynta dekedda Boosaaso, dhismaha waddada Ceel Daahir Ceerigaabo, dhismaha dekedda Garaacad, hirgelinta kastamka Tuurdibi iyo dayactirka waddada dheer ee Boosaaso Gaalkacyo iyo Garowe Laascaano Eyl Garowe. sidoo kale waxaa shirweynuhu ku baaqayaa in la bilaabo dhismaha waddada Guumeys Buuhoodle, waddada Kalabayr Caruura, waddada Garowe Taleex, Boocame iyo Faleeryaale, Boosaaso Qandala iyo waddada Garaacad Galdogob. shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa dowladda Puntland ugu baaqayaa inay si degdeg ah ula timaado qorshe cad oo looga hortegayo cudurrada faafa gaar ahaan cudurka hadda taagan oo dunida ku fidaya ee COVID-19. qodobka afraad, xiriirka dowladda federaalka iyo Puntland. shirweynuhu wuxuu qirayaa in dowladda Puntland ay si mug leh uga soo baxday kaalintii kaga aadanayd dhismaha iyo taabagelinta dowladda federaalka ah, taas oo ah hadaf ka mid ah ahdaaftii Puntland loo asaasay 1998. arrimaha dastuurka. maadaama hanaankii dib u eegista dastuurka la baalmaray, maadaama si ulakac ah looga tegay xubnihii xubnaha ka ah dowladda federaalka ah uga qaybgeli lahaa guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka, iyo maadaama uusan harin waqti si waafi ah looga fara buuxsan karo lana fulin karo arrimaha asaaska u ah dastuurka sida iswaafajinta dastuurada iyo aftida dadweynaha. shirweynaha wadatashiga Puntland wuxuu ku baaqayaa kuna adkaynayaa dowladda Puntland in dib u eegista dastuurka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya dib loo dhigo ilaa iyo muddo xileedka dowladda imanaysa kadib doorashada 2021 si loogu helo waqti waafi ah iyo wadatashi buuxa.
arrimaha doorashooyinka shirweynuhu wuxuu cod dheer ka yeeshay shirweynuhu wuxuu dood dheer ka yeeshay doorashooyinka 2020 iyo sida looga gudbi karo xilliga kala guurka ah sharciga doorashooyinka oo ay ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka federaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalkuna saxiixay dhammaadka muddaxileedkii dowladnimo ayaa leh caqabado asaasi ah oo aan la aqbali karin una cuntami karin mustaqbalka dadka Soomaaliyeed caqabadahaas waxaa ka mid ah wuxuu sharcigu isku dhafayaa nidaamka deegaan doorashada iyo xisbiyada badan oo dastuuri ah iyo nidaamka awood qaybsiga beeleed ee 4.5 loo yaqaan oo ka hor imanaya dastuurka dalka u degan sharcigu wuxuu dastuuri ka dhigayaa hanaanka awood qaybsiga beelaha oo ay ahayd in laga gudbo oo aan marna noqon karin sharciga dalka sharcigu ma abuurayo nidaam doorasho siman oo xildhibaanadu ku soo baxaan maadaama sharciga la ansixiyay dhammaadkii muddaxileedka dawladda dalkuna uusan dhammaan ku wada jirin gacanta dawladda waxa adag in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah isla mar ahaantaana shirweynuhu wuxuu go'aansaday inaan la aqbali karin in wax muddo kordhin ah loo sameeyo hay'adaha dastuuriga ah ee dawladda federaalka ah qodobka shanaad haddaba shirweynaha wadatashiga Puntland wuxuu ku baaqayaa in si degdeg ah ay saamilayda siyaasadda ee dalka isugu yimaadaan shir wadatashi si looga heshiiyo qaabkii lagu geli lahaa doorashada 2020 waxaana shirweynuhu soo jeediyay in dawladda Puntland qaadato doorka qaran ee kaga aadan ayna fidiso gobol Soomaaliyeed oo loo dhanyahay arrimaha federaaleynta dood dheer ka bacdi shirku wuxuu walwal iyo walaac ka muujiyay in nidaamka federaalka ee saldhigga u ahaa axdi qarameedkii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu sii wiiqmayo dawladda federaalka ahina ay ka weecatay nidaamkii federaaleynta dalka gaar ahaan wuxuu shirweynuhu walwal ka muujiyay faragelinta qaawan ee lagu hayo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah iyo nidaamyadooda gudaha arrintaas oo ka soo horjeeda dastuurka ku-meel gaarka ah ee dalka faragelinta ciidamadeed ee keentay dhimashada dhaawaca iyo barakaca bulsho ee ka dhacday doorashadii koonfur galbeed ee Baydhabo doorashadii galmudug ee Dhuusumareeb iyo colaadda gobolka Gedo ee hadda taagan ku tagrifalka awoodda dawladda sida caburinta xoogaga siyaasiyiinta ah ee ka aragtida duwan xukuumadda cunaqabataynta socdaalka hawada iyo xayiraadda waxbarashada ubadka Soomaaliyeed ansixinta sharciyo aan ku dhisnayn wadatashi iyo wada shaqayn dastuuri ah sida sharciga batroolka midka doorashada sharciga hawada iyo sharciga isgaarsiinta arrimahan oo dhan waxa ay baalmarsan yihiin qodobada dastuuriga ah ee 53aad 54aad 120aad iyo 142aad ee dastuurka ku-meel gaarka ah ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya qodobka 7aad shirweynuhu markuu arkay in la baalmaray heshiiskii dhisidda siyaasadda amniga dalka ee tibaaxayay tababarka qalabaynta iyo hoggaanka ciidanka ee la saxiixay ka hor shirkii London 2017 wuxuu shirweynuhu walaac ka muujiyay in ay dawladdu dhisayso ciidan dhinac u raran oo aan isu dheelitirayn khatarna ku noqon kara amniga xasiloonida iyo wadajirka dalka shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa dawladda Puntland inay xisaabtan dhabax kala gasho dawladda federaalka iyo dawladaha gacanta ku siiya dawladda federaalka ah dhisidda ciidanka qaranka Soomaaliyeed labadaba qodobka 8aad shirweynuhu wuxuu walwal weyn ka muujiyay siyaasadaynta deeqaha ee dawladda federaalka ay ku hayso deeqaha caalamiga ah ee lagu talagalay arrimaha bini'aadanimada horumarka iyo adeega arrimaha bulshada arrintan oo keeni karta sii jiitan colaadda iyo kala qaybsanaanta bulshada Soomaaliyeed
shirweynuhu wuxuu ku adkaynayaa dowladda Puntland inay dowladda federaalka iyo beesha caalamka kala xisaabtanto hubinta in deeqaha caalamiga ahi aysan dib u keenin xasiloonida iyo deganaanta dalka Soomaaliya. qodobka 9aad shirweynuhu wuxuu dood iyo falanqayn dheer ka sameeyay qaabka wada hadalka dowladda federaalka iyo Somaliland iyo saameynta ay arrintaasi ku leedahay dowladda Puntland. shirweynuhu wuxuu hoosta ka xariiqay inaan cid kale go'aan ka gaari karin dad iyo dhul ka tirsan Puntland sida waafaqsan dastuurka ku-meel gaarka ah ee federaalka Soomaaliya. waxaana shirweynuhu ku nuuxnuuxsaday in dalku leeyahay nidaam federaali ah oo ku salaysan dowlad goboleedyo xubin ka ah dowladda federaalka ah. wax kasta oo ka baxsan hanaankaas lagu heshiiyey wuxuu khilaafayaa dastuurka ku-meel gaarka ah ee Soomaaliya. dowladda Puntlandna waa inay ka yeelataa wadatashi kana qaadataa go'aanada ku habboon ee dastuurka Puntland uu ogol yahay. qodobka 10aad haddii ay dowladda federaalku sii wado hareer marista dastuurka dalka iyo burburinta hanaankii lagu heshiiyey ee federaaleynta dalka, shirweynaha wadatashiga Puntland wuxuu dowladda Puntland ugu baaqayaa in iyada oo wakiil ka ah shacabka Puntland ay qaadato go'aan walba oo lagu badbaadinayo masiirka iyo mustaqbalka Puntland ee dastuurku uu ogol yahay. qodobka 11aad ugu dambeyntii wuxuu shirweynuhu u mahadcelinayaa madaxweynaha Puntland qabashada shirweynaha wadatashiga Puntland. wuxuu sidoo kale shirweynuhu u mahadcelinayaa guddiga qabanqaabada jaamacadda BSU iyo Maxamuud Sheekh Xaamid oo oday ah oo noo fududeeyay laamaha amniga iyo cid kasta oo kale oo arrinta qayb ka geystay. waa mahadsantihiin dhammaantiin.